السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن وناكسن صاحب السود هذا لما أنتي إن عافماد قبطان والنمط قبطان بعد الرجينية waxaan caawid in la wadaagayaa qiso aad xaqiiqatan u naxdin badan Soomaalida wax ku maamada ilaa jacayl wala dhinta wixii hore waxba ma ahayn waxaan habeenada ka sheekeynay iska hataa tacabuha jacayl dhaafay jacaylkan loo dhiman jacayl boorta ma horta marka hore hadda calool jilicsan tahay hadaawan ba muuqaalka هذا قف على رجل عسن مسكينة ومر خروق ويتاه سكحر مقالك هداون وفرنت وارس سيدي النوع هذا هيت وحن ودع عيننا ولا له ريق الزق جبت الله خذ الغاضو عد والبورد بعطي سن الله سبحانه وتعالى لتاق الله خذ الغاضو ورتا ديد وامتحان وايد دبعتي مرقب بدنته تدكون اسكسي ومسوي جهده قفل بس بيحسب فجده qof bafraxad ku qaabisha qof imro ku qaabisha waxaana qof walba oo ku qaabisha waji gooniya dadka qaar ba farxad iyo reereyn ku qaata waqtigooda inta badan inta halka dadka kalena la nool yihiin murugo iyo ciil oo ku taalo iyo caro mahadha hadaba qisadan waa qisa dhab ah oo ka dhacday Soomaaliya khaasatan gobolada dhexe ee Soomaaliya qisadan waxay ka dhacday magaalada Beledweyne ee gobolka Shabeellada Dhexe amba Hiiraan oo kala soo taqaanaan Hirshabeelle caasimadiisa wiil dhalinyaro ah ayaa magaalada ku noolaa oo loo yaqaan Axmed wuxuu ka mid ahaa arday wax ka barata dugsi ka mid dugsiyada ku yaala magaalada Beledweyne waxaana maalmaha ka mid isbarteen gabadh lagu magacaabo Suleekha oo ka mid ahayd ardayda dugsiga oo dhigto la dhigata laakiin fasal ahaan ka hooseysa gabadha Suleekha lagu magacaabo iyo Axmed barashadoodu kadib waxa ka dhex abuurmay jacayl iyo dareen kalgacayl oo xadaaf oo midba kale u qaaday ilaa iyo dhammaan lagu ogaaday iskuulka oo dhan oo macallimiintina ay ka war heleen xanta jacayl ee lamaanahan waxayna noqdeen kuwa iyaga si gooni isku tixgeliya mar kastana wada jecel inay waqti isla qaataan waxaana caashaqan ugubka midba kale u qabo uu gaaray in haddii aysan isla joogin la iska maqla telefoon oo marka la kala maqan yahay telefoon haddana la iskaga warhayo in adduunyo joogo maxaa aragti ku laaban Axmed iyo Suleekho waqtigii aasaaska jacaylkooda waxa uu waqtigu u ahaa mid u hiiliyay iska dhaafinay xataa isxantaan amba ay dhibaato dhex marto saacadna isku may dhaafin inay isqoonsadaan oo ay murmaan maalin soo martay iyo saacad soo martay ma jirto ma murmi jir weligood may murmin hadal yar oo dilqaaf isku yoolay waayaha adduunyada kulli waa cibaaro ciidis bidhaantaaba waxbay ku caan noqotay amaana waqtigoodii hore iska wabixiyay jacaylka xididada mutay oo axad iyo amaanada dheeraadka lagu haysiiyay muddo 3 sano kadib waxa la isla meel dhigay in geedkii jacaylka la beertay muddo la waraabinayay midhihiisa la gurto oo jacaylku sida xaqiiqada ah qof walba wuxuu uga socdaa labada qof ee dhalinyarada haasaawaya ee isku qanca ceeb maaha ee waxa dhaqan xumo ah in labada qof xumaan iyo zina ku dhacaan oo xumaantaas xunta laakiin labada qof inay haasaawaan si sharciga waafaqsan ay u sheekaystaan wixii danahooda mustaqbalkooda isweydiiyaan ceeb ma haddana qofka la haasaawin qofka afka laga galiyo inta badan laguma guulaysto labada qof ee aan wada sheekaysan iyo aan sheegaysan la siiyo inta badan way soo kala boodaan waxa fiican qofka labada qof inay sheekaystaan muddo ugu yaraan 6 bilood ama 2 bilood sheekaystaan markay sheekaystaanna isfahmaanna waxa ku xigaan inta badan waa jacayl waa guur weyn waxa dhanka kale cagsiya dadku inay isdaba socdaan intaas sanad 4 sano 5 sano 10 sano maxaa laga sheekeynaa marka ayaanan dhixgal mawduucaasi qisadan ku socono kulliba jacaylku
meesha u dambeeya ku intihoonaya anuu ka dhaqan xumada kama hadlayo ka saxda ah ee ujeedkiisa u dambeeyay iyo hadafkiisu waa guur wey marka waxay ku ballameen 3 sano kadib in midhihii ay beerayeen iyo geedkii ay waraabinayeen in midhihiisa kutaan qorashadaas macnaheedu waa maxay iskuursidaan macnaha way labaana noqdaan waa la isku afarta arinta Axmed wuxuu ka codsaday inuu fursad siiso si ay hooyadii ugu wargeliyo marka aabiyi uu dhintay hooyadii baa nool gabadhan way ka aqbashay Axmed habeennimadii ayuu xaafadda yimiday waana curadka ugu weyn xaafadda waana agoon aabihii waa dhintay habeennimadii markuu xaafadda yimiday ayuu hooyadii u sheegay isagu wuxuu islahaa hooyadaa way ku farxi doontaa oo markaad arrintaa u bandhigto hooyadaa arrintaasi way ku farxi oo soo dhaweyn buu islahaa hooyadii buu la faqay arrintii buu gaar ugu sheegay hooyadii waxay u sheegtay in arrinkaasi yahay mid wanaagsan arrinta guurku hooyo inaad guursataa waa arrin fiican oo hooyo arrinkaa waan soo dhaweynayaa laakiin waxaan hore kuugu doonay gabadha habartaa dhashay ee Nasra la yiraahdo isla gabadhan waxay isku fasal yihiin gabadhan aad jeceshahay ee jeegaysa ee Suleekha la yiraahdo ninkii Axmed wuu cataabay wuu calaalay hooyo sida ka daa gabadhu waa walaashay ma guursan karo gabadhan aan jecelahay hooyadii waxa ku tiri iska dhaaf waxa laba kala baraday kala war la si walba isugu day ninkii Axmed hooyadii inuu ka baryo oo arrintaasi ka tanaasusho oo jacaylkiisa la garab gasho hooyadii waa ka ogolaan weydii waxa ku qasabtay hooyadii inuu amarka waalidka qaato oo farduucay farhabaar mar doorto amba duco qaado habarta gabadha dhashay gurso amba habaar dooro oo gabadha jeceshay gursay ku tir ninkii Axmed wixii habeenka ka dambeeyay waxa uu bilaabay jawi murugo iyo fikir ku dhisan habeenkii oo dhan ma ladin ilaa waagu bugudatay waxaana Suleekha u sheegay in arrintii waalidkiis ku gacan saareen waxaana isku calaacal dhamaystay wiilkii Axmed iyo Suleekha kadibna waxa isku waafaqeen inaanay kala maarmi karin oo nafta isku hurayaan waxa isku dhaarsadeen in nafta isku huraan Axmed ayaa telefoonku wacay gabadhii loo ballan qaaday ee hooyadii waa lagu siinaya ku tiri Nasra ahayd ee soo dhex gashay jacaylkooda telefoonka wacay wuu la hadlay si uu naruuro iyo bal nafis uga helo oo culayska hooyadii soo saartay ay uga tanaasusho oo ku dhahawo walaalay gabadh baan jecelahay inagoo walaalaanahay ka tanaasul balse xaggeeda culayska la kaga yimid waxay ku tiri walaal aniga laftarkaydu arrintaas waan ka tanaasuli karaa laakiin waalidkay ayaa igu yiri ninkaasi hadad kursan weydo xabaar baan ku ognahay in lindan lihma daale ninkii Axmed wuxuu mar labaad ku soo noqday hooyadii Siraad garka iyo jilbku qabsaday wuxuu ka codsaday mar kale inay hooyadii ka tanaasusho gabadhan habareetii dhashay ee lagu qasbayo gabadha oo jecelayna la siiyo laakiin arrin kale oo naxdin leh ayay hooyadii ku wargelisay waxay ku tiri bari maahane sahan dambe ayaad aqalgalkaaga iyo arooskaaga wadhacayaa inna lillaah warkii hore war soo dhaaf Axmed waxa mar kale ku bariyay waa cusub wixii hore ciyaar binoqotay wuxuu hooyadii u sheegay inaysan dhici karin intuu nool yahay inuu gabadha guursado dunidana ka tagayo hadduu gabadha jecel dhisin waayo way Siraad oo Axmed hooyadii intee dhoola cadeysay bay ku tiri waa lagu taliyaa iskuma talisid ee waxaan ku leeyahay maqal Axmed intuu aad u ilmeeyay ayuu ku celiyay mar kale inuu adduunyada ka tagayo haddii uusan helin gabadhii Suleekha ee uu jeclaa
ilaa waxaa gubaya jacaylka uu qabo gabadhaasi taa beddelkeeda waxaa murugada la qabta oo fikirta dartiis oo daamanku guduuteen oo daamanku dhaceen oo daamanku dhuubnaadeen gabadha Suleekha hooyada laftarkeedu culayskan soo kordhay saameyn buu ku yeeshay bal waxaan jalaacaynaa oon eegaynaa dhammaadkii noloshii Axmed dhammaadkiisii maalin maalmaha ka mid ah ayaa wuxuu tegey markii hooyadii uu si kasta uga codsaday inay gabadhaasi ay ku qasbayso ka dayso gabadha uu jecel yahay in ay siiso iyo hooyadii dhag jara ku siin weyday ayuu maalin maalmaha ka mid ah suuqa tegey dukaan magaalada ku yaalla oo lagu iibiyo sunta cayayaanka ayuu wuxuu ka soo iibsaday sun aad u tayo sarreysa oo digrigeega iyo awooddeedu aad u sarreyso waxa uu yimiday goor cishaa'igii kadib ayuu gurigooga yimiday sariirtiisii hurdada ayuu dul tegey wuxuuna soo qaatay cajalad uu ku duubay arrintii uu dhintay iyo hadallo dardaarana waxa uuna kadib cabbay suntii uu laaqday oo qasay isla habeenkiiba nafta ka baxay reerkii Axmed oo ka dhashay goor dambe oo galabtii maalnimadii dambe galabnimadeedii ayaa la arkay ninkii Axmed uu soo bixila gurigii baan ka soo baxaynin oo halkii xalay uu jibsaday aan ka soo kacaynin oo aan saaka soo quraac tegin oo aan soo qada tegin casarkii baa lagu baraarugay weli uu hurdaa baa lidhi hooyadii baa loo sheegay islaantii waxay damacday bal inay wiilkayga soo toosiso balse fajac iyo anfiriir iyo afkala qaad iyo qaadan waa waxa ku noqday wiilkayga ka cibaystiray balse waaba meyd oohin iyo baroor bay isku dartay xeedhooyin fildhaal goor ay kala dhaceen ayay barooratay hadda ka horna waxaa laga kari lahaa inankaaga u dhis gabadha u jecel yahay ka daa gabadha ku khasbayso alla waalid fara badan maxay laba qof oo is jecel ay kala fogeeyeen iyagoo dana khaas ka eeganaya waalid fara badan maxay gabdhahooda ku qasbeen wadii ka weyn iyagoo lacag iyo adduunyo eegi waalid fara badan maxay ku qasbeen inimadooda qof qabiil dartii iyo dana gaara iyagoo waxaan u joojinayn oo ku xidhaya duco iyo habaal midooro maxay laba qof oo is jecel kala fogeeyeen duruufta waalidka oo sababay المهم si kastaba ha ahaatee islaantii oohin bay afka jabsatay waa min xayثu laa yanfacu nadam waa meel aanay murugada iyo oohintu aanay waxba ku anfacaynin ma oohin baa qof dhintay soo celin karta waa maya deriskii oo dhan baa isku soo baxay waxaa furmay jawi baa furmay waxaa furmay jawi buuq iyo murug iyo taasile baroor baa xaafadda isqabsatay deriskii baa isku yimiday waxaa laga war helay sariirtiisii laga helay fariin iyo cod awduubay waxaa warkii heshay lamaantiisii adduunyada uu kaga tegay oo ku cilleeyey ee Suleekha ahayd gabadhii Suleekho maalmo yaroo kooban kadib waxay soo iibistay taraq iyo gaas musqul xaafadda ku taalay oo bannaanka u baxsaneed ayay gashay iyadoon war laga haynin oo aan laga warhayn markay musqushii gashay waxay isku shubtay oo isku bilbilisay taraqii iyo gaaskii qofkaan taraqa garanayni waa birikii waxa loo yaqaano reer waqooyiga reer koonfurkuna taraq boo yaqaano waxaa laga war helay uuro casaan ah iyo olol iyo qiiq ka baxaya musqusha isku yacyaac iyo isdhexyaac iyo oohin iyo ka qabtaay iyo maxaa ololayaay iyo qayladii ayaa lagu soo yaacay waxaa laga war helay musqushu inay xidhan tahay waa la jebiyey waxaa loogu tagay gabadhii oo jidhkeega intiisa badan u gubtay oo nafla caariya oo suuxsan cisbital baa loola cararay waxaa lagu guulaystay bal in la badbaadiyo laakiin waxaa nasiib darro ah gabadhii inay noqotay baf amba qaac noqotay amba ay waalatay oo maskaxdeeda dabkii gaadhay oo ay maskaxdeedii sidaa ku weyday
jirhkeygii qaybo badanna quruxdiina kaga tegtay sidaan oo ku baaba'ay. Gabadhii waxay noolayd iyadoo naafana ah waalana. Ninkii Axmedna jacayl dartii ayuu u dhintay. Gabadha lagu qasbayna ma calfan, hooyadii dhashayna gablan bay noqotay. Qisadaasi waa qisadii noloshayda ugu murugada badnayd. Waalidiinta Soomaaliyeed waxaan uga digayaa inay iska ilaaliyaan qofka ay dhaleen inay ku qasbaan qof uu jecel yahay haddaanu xumaan iyo dhibaato diinad aanu lahayn. Intaa baan kusoo gabagabeynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.